maakhir ee ka howlgasha degmada Naceelbo ee gobolka Sanaag ayaa magaalada Naceelbo waxay ka wadaa dhaan weyn oo markaas ay ugu tala gashay in lagaga faa'iideysto biyaha roobka oo bulshadu ay markii hore ayna biyaha roobka ayna ka faa'iideysan jirin. haddaba dhaamkaas weyn ee haatan shaqadiisa ka socoto magaalada Naceelbo ee gobolka Sanaag waxaa booqday dhalinyarada isxilqaan oo markaasi ka warbixiyay booqashadu sida ay ahayd iyagoo kuna kulmay madaxa mashruucaasi ee shirkadda maakhir Siciid Cabdilaahi Mare ay ugu sheegeen booqashada ay saaka ugu yimaadeen dhaankan haatan shaqadu ay ka socoto. waxaanu soo booqanay xaradii weyneed ee Ceelbo laga qoday ee gobolka Sanaag oo keenay qurbajoog khibrad badan leh la shaqeeya bulshada si fiican u la shaqeeya baahiyahoodana u keena sababtoo oo ah Ceelb ninka la yiraahdo Faysal khayr Allah siiye wuxuu aagaa oo uu keena baahida hadba meesha la joogo looga baahan yahay. markii hore wuxuu noo keenay matooradii leyrka ee xoogga korontada ayuu noo keenay. deeshu mudan yahay dad badan buu wadanka joogay wax badan buu u qabtay oo ganacsi ah. waxaan u baaqayaa qolada qurbajoogta oo deegaanka u dhalatay waxaan leeyahay war dalka kaalaya oo dalka wax u qabta oo dadkiina wax u qabta oo sida ninka muwaadinka ah oo dadkiisa iyo dalkiisa wax u qabanaya deeshu mudan yahay in lagu daydo mudan yahay. sugnay waxa weey waa goobta ay ka socoto mashruuca dhaamka biyaha ee degmada Ceelbo saad u jeedaan shaqadii way socotaa waxay u socotaa si dalantaal ah si xawli ah waa u jeedaan gaadiidkii cagafyadii oo shaqeynaya. mashruucan waa mashruuc ballaaran mashruuc weyn mashruucan waxaa keenay oo fikirkiisa lahaa oo maalkiisa iyo hantidiisa la geliyay khayr Allah siiye Allah barakeeye ganacsiga Faysal Cali Xaashi. annagu waa dhalinyarada Ceelbo waxa weeye haradii ka socotay magaalada Ceelbo oo laga qodayay intii anagoo dhalinyarada Ceelbo aad baan u soo dhaweynaynaa mashruucan waxaanuna aadna ugu mahadnaqaynaa oo ugu ducaynaynaa ganacsiga Faysal Cali Xaashi. dib waxaan leeyahay Faysal Cali Xaashi kulba intaan aqaanan dadka qurba joogta ah waa niga kaliya dalkiisa iyo deegaankiisa maal gashaday. runtii waxaan filayaa qurba joogta kalena waxaan baaq ugu dirayaa inay ku daydaan Faysal Cali Xaashi. Ilaahay waa mahad leh. marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa ganacsadaha Faysal Cali Xaashi ee mashruuca kan hormuudka u ah isagoo wax badan oo hore qabtay qurba joogta kiisadaha lacagta ku haysata waxaanu leenahay idinkuna lacagtiina ka faa'iideysta dadkiinana uga faa'iideeya oo baahiyo badan baa jire dhugu yeesha. kambaniga hawsha tan wada isagana waan u mahad celinaynaa waa kambani guuna degmooyin badan ka soo shaqeeyay gobollo badan ka soo shaqeeyay shaqada sida uu u wadana waanu ku qanacnay runtii waana mashruuc weyn anagu oo manaanu deganayn buraan baa biyo noo ahaa. subhanahu wa ta'ala ya mahad leh. maanta waxaanu joognaa haradii magaalada Ceelbo laga qodayay sida inoo muuqata alxamdulillah waxa maraysa gabagabo heer gabagaba oo wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu mahadiyo mahadin Allah subhanahu wa ta'ala ka bacdi. isla sidoo kale dhalinyarada waxaa war ka siiyay dhaamka shaqadiisu si u socoto madaxa shirkadda maakhir ee shaqada haatan ka socota magaalada Naceelbo ee gobolka Sanaag Siciid Cabdilaahi Mare oo isagoo ka sheekay baaxadda uu ku fadhiyo dhaamkani iyo markaasi qorshaha loogu talagalay. haradan oo mitiro isku wareeg waa hara qaadi karta ilaa 200 birmil oo birmil. haddana shaqadeedu muddo 2 bilood iyo 20 beri bay socotaa. boqolkiiba waxaa tegay 70 shaqadii soddonna waa dhiban yahay. isla sidoo kale wuxuu u mahad celiyay dhalinyarada isxilqaan ee saaka soo booqatay ee haatan ku soo booqatay goobtii laga qodayay dhaamkaasi weyn ee lagu talagalay in lagaga faa'iideysto biyaha roobka. iskale waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada mashruuca shaqadu ka socoto soo booqatay oo dhalinyarada isxilqaan oo macallimiinta leh oo odayaasha leh oo cilmada leh oo kurtida leh oo suldaamada leh
aad iyo aad baan ugu mahad celinaya bulshada ku nool degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag ayaan biyaha roobka ayna markaasi ayna ka faa'iideysan jirin balse maanta tan ayaa wax gal u ah oo ay ka faa'iideysan doonaan biyahaasi dhaamkaasi lagu qabtay waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur telefishinka caalamiga Soomaali Cable TV degmada Ceelbu gobolka Sanaag.